munaasabadani oo ahayd mid loogu duceynayay Allah u naxariistay marxuum injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay garoonka Stadio Konis ee degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho oo haatan loogu magac daray marxuum injineer Yariisow. Munaasabada waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Kheyre, xubno kala duwan oo ka socday golayaasha dowladda, boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo xubno kale oo lagu cazumay munaasabadaasi ducada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu soo gaaray garoonka Stadio Konis ee degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho waxa uu u waxdhigay taalo lagu xasuusanayo marxuum injineer Yariisow. Khadiija Maxamed Diiri, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadaasi ducada ka hadashay, ayaa qirtay marxuum injineer Yariisow inuu ahaa shaqsi ku weyn ummadda Soomaaliyeed isla markaana wax badan u soo qabtay dalka Soomaaliya. xaaskii carruurtii uu dhalay oo afar ka mid ah ay dhinac taagnaayeen, dhaawiciisana wax ka soo gedgediyeen ayaa ku safarsan oo la naxariisanayo. qaran maamuusay ayaa madaxdiisu yahay ay taagan tahay tan iyo maalinta ay jugta dhacday, iyadoo og inuu mudane marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan uu ahaa maayarkii magaalada iyo gobornatoriyii gobolka Banaadir oo ah maskaxdii dalka, wadnihii dalka, indhihii dalka, muraayadii waddanka Soomaaliyeed. laguma iloobi doono maalin iyo labo isagaa samaystay 29 Julaay 2008 ayuu dalka ku soo noqday. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in injineer Yariisow uu ahaa nin haliyay qaran isla markaana gobolka Banaadir wax badan u soo qabtay, isagoona sheegay in xilligan muhiim ay tahay in shaqadii uu qaban jiray gudoomiye Yariisow la sii la wajibaaro. Allah u naxariistay injineer Yariisow waxa uu lahaa tilmaamaha laga rabo qarannimada mustaqbalka. wuxuu ahaa Soomaaliyada mustaqbalka aan raadinayno tilmaanteeda oo qofa. wuxuu ka madax bannaanaa qabyaalad, wuxuu jeclaa dalkiisa, wuxuu ahaa wadani, wuxuu aqbalsanaa shaqo walba oo qaranku u diro inuu qabto, wuxuu soo qadimay naftiisa. waxaa macno u sameynaysay Soomaalinimada iyo qarannimada. wuxuu lahaa dulqaad inteena kale haddii la isku daro aanan lahayn. mar walboo la isu yimaado wuxuu ahaa qofka ugu horeeya tanaasula. tanaasulidda looga baahan yahay qof walboo Soomaaliyeed dalkeeda inay u tanaasusho ayuu tusaale u ahaa. wuxuu ahaa aamin aan ku shaqayn musuqmaasuq. 11 sano kadib markuu dalka ku soo laabtay iyo markii uu jaamacadda ka baxay, maalinna kama aanu niyad jabin inuu dalkiisa u adeego. qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waktigii uu idinla joogi karay, idinla noolaan karay, waxaad ogolaateen inaad ku bixisaan inuu qarankiisa u adeego. waa ognahay in habeeno iyo maalmo badan oo aad xaq u laheedeen inuu idinla joogo oo u adeegayo qarankiisa. waa sababta ay tahay inaan maamuusno, waa sababta ay tahay inaan aaminsannahay inuu la mid yahay halyeeyadii soo xoreeyey dhulkan. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka yaqaanay injineer Yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir, isagoona tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. ugu dambeyntii munaasabada waxaa ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuum injineer Yariisow, isagoona ku dhawaaqay in garoonka Stadio Konis hadda kadib loogu magac daray Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa haddii qof la tilmaamayo
oo dowlad yaqaan ah waa dadka yar oo dalkan ku haray. haddii laga hadlaayo qof yaqaana sharciga iyo kala dambeynta iyo wadaniyadda waxay tahayna waa qofka ugu horreeya iyuu ahaa. waxaan rabaa dadka dowladda u shaqeeya ama siyaasadda ku jira laba dhaqan ama laba hadaf iyo ka leeyihiin hawsha ay dowladda u hayaan. soomaaliya keliyana maaha, waa caalamka oo dhan waa nala qabaan. waa laba dhaqan oo kala fog. dhaqan wuxuu yahay qofka dowladda usoo shaqo taga, wuxuu yahay qof ugu yimid dowladda inuu ka danaysto, inuu ka shaqaysto. waa dhaqan jira oo caalamkao dhan ka jira. dhaqan kalena wuxuu yahay qof u shaqeeya ummaddana u adeega, oo aan ka arkayno ummadaha naga horeeya horumarka waxay ku gaareen ay tahay. haddaba qofka danihiisa u yimaada oo ka shaqaysta waxa weeye waa qof darajo doona. cabdiraxmaan darajo doon ma ahayn. cabdiraxmaan wuxuu lahaa quality ama tayo, wuxuu lahaa inuu u shaqeeyo ummadda u shaqeeyo isagoonan darajo haynin ama title weyn haynin yuu ahaa. marka qofka danaystaha ah wuxuu ku soo galaa dowladda inuu title helo. titlekaasna wuxuu ku raadiyaa awood gaar ah oo uu danihiisa shakhsiga ku fushado inuu helo, hadday tahay dano dhaqaale iyo hadday tahay dano kale oo guracan. waxa weeye wuxuu fahamsanaa dowladnimadu inay ahayd nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci la ilaaliyo. beesha caalamka dadkooda horumaray iyo kuwa beesha caalamka kuwooda dambeeya oo annaga nalagu taliyo nasiib darro, waxa weeye labadaas iyo waxay u bataan tan wanaagsan oo ah ummadda in loo shaqeeyo, loo adeego, iyo ummadda in laga shaqaysto. cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin adeega ah, wuxuu ahaa nin naxariis badan, wuxuu ahaa nin sharciga u ilaaliya qofka shakhsiga xoolihiisa inuu ilaashado. maxaa yeelay waa wax naga wada dhexeeya, waa mas-uuliyad ummadda loo hayo, waa mas-uuliyad lagu aaminay. wuxuu ahaa nin aamin ah. munaasabaddu marka ay soo gabagowday waxaan dareenkooda wax ka weydiinay xubno ka socday maamulka degmada Kaxda iyo shacabka degmadaasi oo munaasabadaasi ducada ka soo qaybgalay, iyagoona sheegay inay ka xun yihiin geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum injineer Yariisow. inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto guddoomiyihii gobolka ahana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, oo qof aad qaali noogu ahaa, oo gobolka Banaadir oo dhan iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay tabayaan, oo aan hubno in aad loo tabayo. ilaahay ha u naxariistaan leenahay asaga iyo intii la dhimatayba. Cabdiraxmaan waa Bri, Som News, Muqdisho.